xildhibaan Iid Xasan Cabdi oo ka tirsan xildhibaanada golaha deegaanka degmada Gabiley oo warbaahinta la hadlay ayaa soo dhaweeyay librariga laga dhisayo magaalada Gabiley balse xildhibaanka ayaa shaaca ka qaaday in laga wanaagsan yahay in dhakhtarkii hore ee magaalada loo bedelo library maadaama buu yiri ay wali taagan tahay baahida caafimaadku isla markaana librarigu leeyahay goob lagu yaqaano oo ka soo horjeeda dugsiga hoose dhexe ee Sheekh Maxamed Warsame xildhibaan Iid Xasan Cabdi oo ah siyaasi xoogagaal ah ayaa tilmaamay in maayarka magaalada Gabiley uu doonayo in hodheel ka dhiso barta imika uu librarigu yahay sidoo kale wuxuu tilmaamay in fulinta mashruucan ay bisha sagaalaad ugu tala galeen balse sababta keentay dadajinta mashruucan ay cadeynayso in musuqmaasuq ku jiro oo la doonayo in laga faa'iido mashruucan xildhibaan Iid Xasan Cabdi ayaa kamid ah tiro xildhibaan ah oo maxkamadda gobol degmada Gabiley ka hor cadeeyay in maayarka magaalada Gabiley uu galay musuqmaasuq isla markaana lunsaday budgetkii loogu tala galay la tacaalista garanwaaga waxaan maanta doonayaa inaan ka hadlo arrin aad u muhiim ah oo magaalada Gabiley xaalad arrin ka taagan arrinkaasina waxa weeye arrinka librariga waxa jirta magaalada Gabiley waxay tahay laba library oo waaweyn oo halkan iskuulka Sheekh Maxamed Warsame ka soo horjeeday labadii library way xidhan yihiin oo imika muuqaal ahaan waad arki doontaan labadii library oo xidhan si alla si loo munaafacadsado aanay jirin waxa maanta magaalada boodhar waaweyn lagu soo dhajiyay oo xalay toole dhalinyarta lagu wacyi gelinay inay Facebook soo dhigaan oo macal kharash lagu bixinay in dhakhtarkii weynaaye magaalada Gabiley ay lahayd loo rogo library la yiraahdo halkaasaan ka dhiganaa madxafkii wax lagu akhrisanayay lagu keydinay buugaagta de marka la yiraahdo dhakhtar baa library loo rogayaan kulli aqliga bini'aadamku uu diidaya anigu shakhsiyan waan soo dhaweynayaa library-ga in magaalada Gabiley loo dhiso waxaan leeyahay laakiin halkii hore ee loogu tala galay ee labada library ku yaalaan ee ku filan ha laga dhiso dhakhtarkana lagama maarmayo waa dhakhtar imika wuxuu magaalada u qabtaa waxa weeye dumarka ayaa farsamada umulisooyinka ayaa lagu baraa dumar fara badan baa ka soo baxay oo wax ku bartay oo neersnimo ku diyaariyay qalabkii wax walba dhex yaalaan waa dhakhtar dhameystiran marka wasiirka caafimaadka waxaan leeyahay arrinka waa lagu hoos mariyay dhakhtar library loo rogo maynaan anaga wasiir bal arrinka ku noqo library-gana dhul la'aan ma hayso laba library oo waaweyn baa isku agyaale halka ha laga dhiso haddaan waxa la yidhi Soomaalidu waxay tiraa maxaa sacabka habeenkii loo tumaa haddaan xeeladii ku jirin library-gan waxaan dhakhtarka weyn dul dhigay maayarku anagoo shirka fadhino noo sheegay wuxuu yidhi meesha hotel weyn baan ka furaya waxaan leeyahay meeshaasi dhakhtarkii hore inay noo ahaato kama maarmano arrinkaasi lafjab ummadda ku yihi library-ga in la dhiso waan soo dhaweynayaa halkaa ha laga dhiso labada library ku yaalaan labada library halka ay ku yaalaan iskuulka Sheekh Maxamed Warsame ka soo horjeedeed muuqaalka ka daawan doontaan ha laga dhiso hadii daacad laga yahay halka library-ga weyn hadii kale meeshan in la saansaday oo in hotel weyn oo casri ah oo saddex tabaq laga dhiso la doonayo horuu noogu sheegay maayarku anigu waan la yaabnay waxyaabahan isku diidnay bay kamid ahayd marka waxaan leeyahay library-ga Gabiley loo dhisay waan soo dhaweynaa halka library-yada ku yaalaan kuwii hore hal la dumiyo kan casriga ahna loogu dhiso dhakhtarkana sidiisii aan noogu nabad galo dhakhtar library loo rogo maynaan raga baahidayadii baa ka badan caafimaad magaaladu waxay u baahan tahay dhakhtarkii hooyada iyo dhalaanka dhakhtarka weyn inaguma filna xaaladda anagu ku jirnayna haddana dhakhtarkii yaran haysanay aan nidhaahno ee dumarka umulisooyinka lagu tababarayay imika la yiraahdo library ha loo rogo waxaan anigu u arkaa aqliyadaas inaanay sax ahayn meeshaana waxa ku jira inay dan gaari ku jirto way caday waxaan leeyahay meesha library lagama dhisay hotel casri ah laga dhisay sidoo maayarku afkiisa nooga sheegay xildhibaanada golaha deegaanka aad weydiin kartaan arrinta horta anagoo miisaaniyada ka doodana buu yiri meesha waxaan ka dhisayaa hotel weyn oo saddex tabaqa oo dhinacna library ka ah dhinacna cafeteria iyo restaurant waxaan leenahay dhakhtarka ugama maaranaadeer meeshaas mana ogolin in meel dhakhtar loo celiyo library la yiraahdo dhinaca kale mashruucan ka dawlad hoose ahaan anagu 100,000 oo dollar ba miisaaniyadeeda loogu daray dawladda dhexna 200,000 baa ugu jira la yiri mashruucan in la fuliyo bisha sagaalaad baa qorshaha anaga noogu qoran sababta keentay imika in loo soo dedejiyo guddi qadaraas aan la soo marinin ee degta lagu qaato cid gaar ah loo dhiibo waqtigii loogu tala galay in la qabtana laga soo dedejiyo kulli mashaariicda musuqmaasuq ku jira waxa lagu gartaa xilligii loogu tala galay baa laga soo hormariyaa mashruuca maamulku danaynaya ee lacag ugu jirto xilligii loogu tala galay in la qabto ee budgetka ugu jiray
wixii la danaynayo horaa loogala soo baxaa mashruucani maaha mashruuc guddidii qandaraasyada qaranka soo maray waa Jacfar Cawil Harari Horyaal TV magaalada Gabiley